واتهاي واتهاي daawadayaal soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan sheegayay arinta mucjisada ee xaafadda suuq boocle ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir halkan waa meesha ay ka jirto arinta mucjisada waana meesha dadku ay saakay arin mucjiso ay ku arkeen ciidamada ammaanka ee dawladda ayaa halkan ku sugan halkaas aad u jeedaan waa shacabka oo micnaha doonaya in ay markaasi arkaan arintan mucjisada ee halkan ka jirta soo dhawaada waa dadka micnaha halkan u imaaday in ay arkaan meesha la sheegayo waa halkan oo saakay arin mucjiso lagu arkay ilaa haddana ay ka jirto waa ay dhaqdhaqaaqaysaa isla markaana looma dhawaan karo dadka qaar oo xaafadahan agagaarka degan waxay sheegeen in ay markaasi halkan ramadaanka 15keeda laga soo bilaabo ilaa dhamaadka ay ku arkeen ama ay dad ku ciyaarayeen dadka waa la kala eriyay sida u jeedaan si aysan waxyaalo u soo gaarin dadku waxay sheegayaan in halkan qabri ahaan jirtay oo dadku lagu aasi jiray miya ramadaankii wax lagu dheeli jiray dadka sheegaan qaarkood soo dhawaada meeshu ay dadka sheegayaan waa halkan uu dhagax yaalo tijaabo dadka qaar oo tijaabinayo waxay sheegayaan in marka la fadhiisto oo kale la dareemayo oo dhulka in uu micnaha gariirayo laakiin inkastoo baqdin yar uu ugu jiro haddii aan isku dayo yahay waa qofkii imaada ayaa dareemi karaa halkan inay wax ka jiraan ma aan markii ugu horeysay oo Soomaaliya ama Muqdisho lagu arko arin mucjiso ah dib la'aan meeshu waa la tijaabinayaa inta ma halkan ba والله dagaal meel kale ka socdo والله dhulka hoostiisa muu dagaal ka socdaa waa tijaabo la wado adigu ma dareemaysaa in wax ma ka dareemaysaa beeri ya انت تجاوب بل انت تجاوب ابوي ما dareemaysaa ma dareemaysaa saaki ilaa hadda la arkay sida degtada awow degtada saaradi waa yeeraya ha meelo kale oo naga fogaa dagaal ka socda waa gar dadku waxay u qabaan wax intii ka socda ma fahamsan wallahi garaac waa jira waa degtada saaradi garaac waa jira garaac waa jira
ammaanka oo dawladda oo dadka kale eriyaya si aysan dhibaato u soo gaarin dhib kale ma jiro xabado markay dhacaan waa iska caadiyan in la sida dadku ay sheegeen xaafadan dadka degnaa waa qaarkood waa la kala waa ay kala carareen isla markaana banaanka ayay markaas aadeen si aysan wax ugu soo gaarin haddii halkan uu dhib ka dhasho dadka qaar